السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأبشر حسن فاونديشن أنا قومنا محمد عبدية دمان ولا لها ميلان جوجنا بإلهي نقولنا بديالو waxa inoo socotay qisadii iyo waayihii asli waxay inoo mareysay markaa Maryan oo ah diiriye ina abtidiis oo soo booqatay timidna Jarmalka oo hadda ay asli wada joogaan asli markay ka soo laabatay rehabilitationka kadibna yani wax badan uga sheekeynaysa oo ay ka ogtahay diiriye waxay marka noo mareysay Maryan oo u sheegaysa ama uga sheekeynaysa asli qaabkii diiriye dee uu ku yimid maxaa la yidhahdaa Yurub ama uu ku yimid Talyaaniga iyo sidii lagu waayay iyo sidii markii dambe lagu helay iyo noloshiisii siday ahayd maadaama uu asagu si oo maxaa la dhahaa tafatiran uusan ugu sheekayn ama uga sheekayn asli uusan ugu sheegin bay markaa maxaa la dhahaa Maryan ka helaysaa xog badan bay Maryan ka helaysaa marka Maryan sheekadu marka waxay noo joogtay diiriye oo yar markii maxaa la dhahaa uu isbitaalka ku jiray oo contactigii meesha uu kala jarmay maadaama safiirkii meesha laga bedelay iyo qunsulkii hore u joogay diiriye abtigiisna dee shaqadii uu waayay oo wadankaba isaga baxay diiriyana markaa safaaradii iyo dadkii mas'uulka ahaa wadankii uu ka yimid wax xiriir aysan kala dhaxayn diiriye waqtiga aad buu u yaraa ilmo qaliin badan maray wuu ahaa qof wuxuu ahaa maxaa la yiraahdaa ilmo oo ku soo koray baadiye oo weligiis magaalo aan arag xataa magaaladii xamar in yar buu ka joogay oo xataa wax kama yaqaano weligiis si fiican uma arag magaalada asagiyo oo maxaa la dhahaa waxaa laga soo kaxeeyey ma aragtay dee isbitaal uu ku jiray isbitaalkii baa laga soo qaaday waxaa la keenay Talyaaniga markii la keenana dad uusan dee midabkooda iyo weligiis uusan arag luqad kala ku hadlaya maxaa la dhahaa wadan dee ka bedelan wadankiisii iyo wuxuu uu yaqaanay يعني dad aysan waxba aysan wadaagin luqad wadaagin aragti wadaagin oo dad midab kale leh ah wax walbo ka dhaqan duwan ah buu diiriye faraha looga qaaday diiriye cabsi baa galaysa waa ilmo yar yani maskaxdiisa wax badan baa ku furmaya buuq badan xanuun badan waa soo maray oo maarkino therapy badan iyo maxaa la dhahaa ii sheeg qaliimo badan iyo waxyaalo badan buu diiriye marayaa marka hadalkii baa ku dhagayaba yani awalna cidna ma uusan fahmayn haddana maba hadlayaba oo wuxuu noqonayaa qof madluun ah oo ma aragtay yani dareen ahaan cuntadii buu diidayaa wax walbuu diidayaa yani dadkii oo dhan wuu iska xirxirayaa yaa wuxuu noqonayaa qof meel ku kuusan Paul waa aabaha marka dambe diiriye soo korinaya oo farmiyeri ah oo isbitaalka ka shaqeeya ayaa wuxuu u sheegayaa xaaskiisa oo ah therapy ayadana isbitaal ka shaqeysa laakiin marka aan fees therapy ku sameynin maxaa la dhahaa diiriye laakiin therapist ah ayuu u sheegayaa ilaa markii guriga dadka isla nool ama isqabaahi way sheekaysanayaan wuxuu u sheegayaa in wiilka yarka uu qaybtooda ku jiro oo ay Afrika laga keenay oo qaab ay ma aragtay ula macaamilaan ay aqoon la yihiin xaaskiisi marka waxay leedahay Barbara ma idin soo booqan kara aan soo arkay leedahay ilmaha waa noo imaan kartaa uu leeyahay qof walbo dee caawin kara ilmaha yarka uu qof walba waa welcome adoo xaaskiisii baa imaanaysa Barbara markaa maxaa la dhahaa diiriye u imaanaysa oo markaa isku dayaysa inay ma aragtay la hadasho oo markaa diiriye marka waxaa gacanta ku haya oo mar walba u yimaada oo iyaguna isku daya inay ma aragtay diiriyada xaaladiisa wax ka bedelaan soorooyin ilaa dad diin ah dad diinta kristanka aba maxaa dhahaa mas'uulka ah diiriye oo dhaqaalihiisa iyo wixiisa dhan bixinayo caawimaadan bixiyay dadkii bay markaa maxaa dhahaa soorooyinkii iyo maxaa dhahaa Barbara isla hadlaya
baabra markaa waxay isku dayeysaa inay diiriye maaragtay la hadasho oo maxaa la dhahaa cayaaro iyo wax dhalinyarada ilmaha yarka ay xiiseeyaan waxyaalo saas u keenaysaa wixii oo dhan marka hore wuu ignore garaynayaa kadib maalinta ku xigtay waxay u keenaysaa blog iyo maxaa la dhahaa qalimada oo wax lagu masawiro oo maxaa la dhahaa leh midabka leh bay u keenaysaa waxay tusaysaa qaabka wax loo masawiro bay tusaysaa ee ku bilaabaysaa maxaa la dhahaa way la hadlaysaa waxbay u sheegaysaa adigu wixii bay masawiraysaa saasaa wax loo masawiraa saasaa la yeelaa markaasuu xoogaa wuxuu interest buu tusayaa wuu fiirinayaa waxayse samaynayso markay maalin iyo 2 maalin ay tusto oo maalin walbaba ay nusaac u timaado ama 40 daqiiqo ay wax tusto marka dambe diiriye wuxuu bilaabayaa inuu asagu markaa qalimadii iyo bloggii iyo uu ku bilaabo wax masawirad uu ku bilaabo masawir buu bilaabayaa gacantiisaba waa laga fujin weynayaa markaasuu wuxuu masawirayaa diiriye dee noloshiisii qofka waxaa la yidhaahdaa sidiisaba haddii uu trauma qabo haddii uu dhibaato ku dhacdo qaabo badan oo waxaa jira uu ma arkin oo qofka looga soo saaro qof baa hadla qof baa ma aragtay masawira qof baa maxaa la dhahaa in ii sheeg sport sameeya oo ma arkin oo korkiisa saa uga saara wax qofba siba wax isaga saara stresska iyo depressionka haysta marka wuxuu bilaabayaa diiriye inuu wax masawiro markaasuu wuxuu masawirayaa geeloodii ilaan geel buu la jiri jiray moogta geel buu maxaa la dhahaa wuxuu ahaa ilmo yaroo markaa geel jiro laga dhigay geelii buu bilaabayaa inuu masawiro geelii buu masawirayaa iyo xerooyinkii geelal meelihii laga xereyn jiray dhalinyaradii maxaa la dhahaa ciyaaladii asaga la ekaa oo geela wax ka raaci jiray kuwii ka waaweynaa lagdintii ay lagdami jireen hooyadiisuu masawirayaa walaalkiis ka yaroo hooyadiis xambaarsan tahay buu masawirayaa aqal soomaaligii buu masawirayaa xoolahoodii meelihii ay xerooyinkii ay ku xereysnaayeenoo arigii iyo lo-dii iyo maxaa la dhahaa idihii iyo meelahay ku kala xereysnaayeen geedihii najarkii oo dhan uu yaqaanay baliyadii maxaa la dhahaa waxaasoo dhan uu masawirayaa maaragtay qooleydii iyo dee xayawaankii biibayay iyo ugaartii iyo waxay samayn jireen oo dhan iyo dabkii ay shidan jireen iyo waxaasoo dhan buu diiriyay wixii maskaxdiisa ku jiray oo dhan dee wuu hilow baa ku dhacay iyo dadkoodii iyo reerkoodii iyo meeshuu ka yimid iyo noloshiisii ilaa nolol aqoonin baa lagu soo dhex tuuray moogta wixii buu masawirayaa marka diiriye wixii buu maalin walba wax masawirayaa adigu markaa waxay helaysaa markaa baabra meel ay kala jaan qaado diiriye markuu masawiro bay maxaa la dhahaa weydiinaysaa oo iyadana afkeeday ku weydiinaysaa asagana afkiisu ugu sheegayaa waxay leedahay yay tahay islaantii dee hooyadiis bay leedahay qofkan yaa waaye hooyo markaasay maxaa la dhahaa fahmaysaa inay hooyadiis tahay maxaa la dhahaa baybiga inuu walaalkiis yahay yacni iyadana luuqadeedii talyaanigii asagana luuqadii soomaaligu ku sheegayaa way isweydaarsanayaan geelii buu u sheegayaa kan waa geeleeni qaabkii loo lisayey buu masawirayaa iyo maxaa la dhahaa haruubgaalkii maa la dhahaa buu masawirayaa hooyadiisoo dee xoolihii lisaysuu masawirayaa oo arigii iyo idihii iyo lo-dii iyo lisays wixii oo dhan buu masawirayaa wixii oo dhan bay iyaduna u sheegaysaa meeshaasay kala bilaabaysaa markaasuu wuxuu baranayaa asagana luuqadda talyaaniga waxa lagu yiraahdo ayadiina luuqadda soomaaliga ugu sheegayaa waxbay isdhaafsanayaan ilaa ay marka dambe ay ku bilowdo markaa inay bugaa kale usoo qaado oy tusto markaa xayawaanka talyaaniga waddanka talyaaniga ku nool iyo waxa ayaga geelooda iyo lo-dooda iyo arigooda uu yahay iyo inay tartiib maaragtay najarkii bay kala bilaabaysaa geedihii bay tusaysaa maxaa dhaha talyaaniga ku yaalay halkaanay ku yaalaan kuwaan xoolahan waa xoolihii talyaaniga waxyaalahaas u bilaabaysaa wixii bay markaa tartiib waxaa u malaysaa markaa inuu uu baabra markaa diiriye uu aaminaad uu aaminayo oo iyada uu wax badan maaragtay la wadaagayo waxay u bilaabaysaa markaa wax aqrintii iyo wax qoraalkii iyo inuu luuqadii fahmo oo la hadasho uu maxaa la dhahaa uu hadlo uu af talyaaniga ku hadlo oo loogu sheekeeyo oo bugaag loo akhriyo oo
mar walba buugaagta oo maxaa la dhahaa nature-ka ka sheekeynaya iyo waxyaalahaas lagu bilaabay kadibna tartiib hooyo iyo aabe iyo eedo iyo habti iyo waxaas la barayaa sida lagu dhaho kabacdi inuu markaa wax weydiiyo asagana aawi familkeygii iyo dadkeygii waa loo sheegayaa diyaarad baad ku timid waxaas oo dhan marna waa loo masawirayaa marna waa loo macnaynayaa wuu fahmayaa marka dambe diiriye muddo yar buu markaa luqadii talyaaniga ku baranayaa familkii oo maxaa la dhahaa odaygii iyo islaantan maxaa la dhahaa Paul iyo Barbara ayaa waxay noqonayaan dadka uu ugu dhow yahay oo markaa maxaa la dhahaa uu aad u aaminayo kadib waxaa laga bedelayaa maxaa la dhahaa isbitaalkii uu ku jiray oo isbitaal kale oo isbishaalista ah oo ku yaala maxaa la yiraahdaa Florence baa loo bedelayaa waana meesha ay saldhigga ku leeyihiin qolooyinkan diinta ah oo diiriye markaa mas'uulka ka ahaa meeshaasaa loo bedelayaa markii meeshaa loo bedelo kabacdina gurigii asaga iyo asligii ay tegayeen buu muddo diiriye lagu haynayaa oo ku noolaanayaa qaybtii oo maxaa la dhahaa loogu talagalay dadka oo maxaa la dhahaa martida ah diiriye waayo marka dambe laakiin waxay ay go'aan ku gaarayaan qolooyinkii diinta ahaa intay sharci u qaadaan oo yacni diiriye sharciga talyaaniga ay u dalbaan inuu dhalashada talyaaniga qaato kadibna meelaha caruuraha agoonta iyo dee caruuraha dadka aan lahayn ama dadkoodii ma aragtay maxaa la dhahaa sidii looga soo qaadayba waxaa jira meelal hayman bay dhahaan jarmalka oo caruuraha lagu haayo in diiriye la geeyo laakiin diiriye waxaa la leeyahay way ku adkaanaysaa marka ugu horeysa waa ilmo waddan kale ka yimid oo maxaa la dhahaa madow ah cunsurinimo badan inuu kala kulmaa dhici karta midda kale wuxuu u baahan yahay wax isbishal ah dad isbishal ah oo hayuu u baahan yahay oo fahma oo waayo problemkiisa wuu ka weyn yahay problemada caruurtan kale wuu kasii problem weyn yahay iyadoo tii la isku haysto baa familkii waxaa soo booqanaya maxaa la dhahaa islaantii Paul iyo maxaa la dhahaa iyo Barbara baa soo booqanaya diiriyo uga daba imaanaya maxaa la dhahaa Florence uga daba imaanaya familkii iyo maxaa la dhahaa talyaanigii oo qolooyinkii talyaaniga oo hayay oo diinta ayaa markaa familkii baa waxay leeyihiin si oo ma aragtay maxaa la dhahaa iyagaa waxay leeyihiin annaga si volunteer ilmahan ku haynayna oo maxaa la dhahaa mas'uuliyadiisa qaadayna idinka dee mas'uulka ahaada laakiin waxaa jira wax la yiraahdo faleegi eltern marka anaga faleegi eltern u noqonayna oo diiriye haynaynay leeyihiin sidaasaa looga aqbalayaa sidaasay markaa diiriye iyagu kula soo wareegayaan marka familkan yihiin waa familkan dhalashadoodu jarmal waxa maxaa la dhahaa talyaani ma aha marka hore waa dad ka yimid Switzerland waa qaybta Switzerland waa maxaa la dhahaa waddan isu tagay oo qaybi jarmal tahay qaybna talyaani tahay qaybna faransiis tahay qayb kanana romaan inay yihiin baa u malaynayaa marka ayaga jarmalka waxay ka yimaadeen qaybta jarmalka ka yimaadeen oo Switzerland bay ka yimaadeen Paul iyo Barbara familia Bergman baa lahaa marka talyaaniga waxay u joogaan shaqo ahaan bay u joogaan shaqay u yimaadeen kadib marka faleeg ahaan bay cunugii yani inay iyagu markaa waarid ahaan oo ma arkin cunugii faleega electran wax la dhahaa jira oo caruurta loo dhiiba caruurta Soomaalida marka dadka laga qaado familo oo waxa loo dhiibaa faleega electran la dhaho wadan walbaba magac kala lagu sheegaa ala kulli xaal familkaasa marka maxaa la dhahaa ku dhigaya marka iyaga familkaasi waa famil dabcan Switzerland ah laakiin dhanka kale aan caruur lahayn oo ayagu caruur ma leh Barbara caruur ma dhali karto sidaa darteed ayay maxaa la dhahaa horena marka caruur kale ay faleega eltran u soo noqdeen ma jirto laakiin waxa u malaysaa in ay ma arkino dareen gooni ah u qaadeen diiriye oo sidaa darteed ay markaa diiriyo ula soo wareegayaan oo ay leeyihiin anaga ma aragtay maxaa la dhahaa wax barayna oo ma arkino waqti gelinayna ilaa waqtigu u baahan yahay in la geliyo oo maxaa la dhahaa wax la baro oo luqadii la baro oo iskuulkii iyo si uu ula qabsado noloshoo dhan dhankii caafimaadkiisa iyo teraabiyadana wuu u baahan yahay iyadana waa maxaa la dhahaa gabar
tarbiyada samayso teraboytan ah ninkeeduna dee waa maxaa la dhahaa nin ma aragtay ah falmiyeeri ah marka insha allah intaasaan ku ekanaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu